Jose Mourinho ayaa ay kaamirooyinka maanta qaban waayeen kadib markii ay dib ugu soo laabteen ciyaartoyda kooxda Manchester United xerada tababarka kooxdaasi ee Carrington xilli ay bilaabayaan isku diyaarinta kulanka adag ee Axadda la qaadan doonaan kooxda Burnley. Ma aysan jirin wax calaamad ah oo muujinaya tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho xilli xidigaha ay soo gaareen subaxnimadii maanta xerada tababarka kooxdaasi. Paul Pogba iyo ciyaartoyda ay kooxda yihiin ayaa yimid xerada tababarka ee Carrington, laakiin macalinka reer Portugal ma uusan kaxaynin darawalkiisii caadiyanba keeni jiray. Kooxda United-ka ayaa ciyaar adag waxa ay ku wajihi doontaa kooxda Burnley maalinimada Axadda garoonka Turf Moor ka gadaal bilowgeedii ugu xumaa ee kooxda horyaalka Premier League dalkaasi Ingiriiska muddo 26 sano ah. Majalada Sports Mail ayaa shalay oo Talaada waxa ay daabacday in xidigaha iyo staafka Manchester United ay aaminsan yihiin in Mourinho uu jiro hal kulan oo kaliya in laga ceeriyo kooxda waa haddii uu khasaare la kulmo mar kale dhamaadka toddobaadkan. Aragtida ah in gudoomiyaha fulinta kooxda ee Ed Woodward uu raacdeeyo Jose Mourinho ayaa ah mid si weyn loo hadalhayo kadib guuldarooyinkii isxigay ee kooxaha Brighton iyo Tottenham, halka kooxda Manchester United ay si public ah u taageertay tababaraheeda Jose Mourinho iyagoona sheegay in ay weli garab taagan yihiin. Waxaana jirta fursad yar oo macquul ah in tababare Mo uu isaga dhaqaaqo kooxda xilli uu kula jiro qandaraas dhan 15 milyan oo pound sanadkii oo ku eg sanada 2020. Jose Mourinho ayaa ay kaamirooyinka maanta qaban